noloshu waa safar ay dhammaan dadku maraan. waxay leedahay wajiye badan oo dadka marar badan ka oysiin kara, marar badanna ka farxin kara. waxaan muuqaalkan kuugu soo gudbin doonaa 5 xikmadood oo ku saabsan nolosha iyo waayaha. haddii maanta waqtigu ka hor imaado, beri adiga ayuu kula jiraa. culays kastana waxaa ka dambeeya fudayd. ilinta maanta waayuhu daadiyaanna ilowsha ayuu ku masaxaa waqtigu. duruufta iyo waayaha adagna marnaba ma qarin karaan qofka geesiga ah ee hamigiisu sarreeyo. waxaa jira geesiya badan oo waqtigu ku adag yahay, misena gudaha howlac kaga shidmaayo, kana dhoola cadayn badan kuwo badan oo waayuhu saacideen. shayna ma damin karo dabka kugu dhex shidmaaya, keliya waxa maamuli kara maskaxdaada oo fikir si habboon oo hami sare leh. nolosha waxaad heli kartaa waxa aad u qastidid ee kaa go-an inaad xaqiijiso. tusaale ahaan, markii aad yareed waad ooyi jirtay si aad u hesho waxa aad doonayso. haddii aanad ooyin, waalidiintaadu waxay u maran jireen inaanad baahnayn. sidaas si lamid ah, adduunkan waxaa ka heli kartaa oo keliya waxa aad weydiiso. isku day oo yeelo geesinimo aad ku wajahdo waxa aad rabto. cashirka nolosha ugu weyni waa in aanad qadarin afkaaraha dadka kale. weligaa hadafkaaga gaari maysid haddii aad qadariso hadallada laga daba leeyahay. ogsoonow, dadka oo dhani raalli kaawada noqon maayaan. haddii aad isku daydana inaad raalli geliso, waa maalinta aad qaaday dariiqii guuldarrada iyo dariiqii burburka noloshaada. qofkaad doontid ba ahaw, ama qani ahaw, ama faqiir ahaw, ama in madaxweyne ahaw, ama ina boqor ahaw, haddii aanad ka daba tegin wax aad rabto, weligaa heli maysid. isku day mar walba in aad hore uga sii socoto meesha aad taagan tahay. nin ayaa waxaa la weydiiyey waa maxay furaha guusha, markaasu waxa uu ku jawaabay garan maayo furaha guusha loo maro, balse waxaan kuu sheegi karaa furaha guuldarrada. oo waa maxay furaha guuldarradu? waxa uu ku jawaabay furaha guuldarradu waa adigoo isku daya in aad qof walba raalli gelin karto, iskuna daya in aad ka farxiso dhammaantood. arrintana waa mid aan ahayn macquul. ma awoodid inaad dhammaan dadka raalli geliso. haddii aad isku dayda in aad raalli gelisana, waa maalinta aad bilowday dariiqii burburka noloshaada iyo dariiqii guuldarrada noloshaada. isku day inaad ahaato qofka aad tahay. ha u bedelin shakhsiyadaada shakhsiyaad kale.